السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في نمو وناكسن دمان أمود الصوماليات دنيا دافع المال والباقي شوفتو هبين وناكسن بانين لا يهي هبين كوهيدين وعنادو سعادة نحن الصوق قلي رنتي معلمها نسفران كجراء حقيق دي وحنادي هذا غفر أحسن هاي oo aan raba inaan shacabka Soomaaliyeed habeenimada aan la wadaago khudbadii qiimaha badneed ee farxadda badneed madaxweynaha koonfur galbeed mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen oo runta indhaha ka saaray siyaasad cajiib aan u isticmaalay xildhibaanadii dictatorada ahaa ee koonfur galbeed laga soo doortay diiday inay isku xishoodaan baneeyaan xukunka ama xildhibaannimada oo in muddo ah xuquuqda bulshada koonfur galbeed meel cidla ah ku haystay ayaa waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay caawayto in runtii khudbadaas ayada ah raad culus ay ku reebtay horarka ah ee xildhibaanada ah laga soo bilaabo waqtigii Cabdiqaasim ilaa maanta laga joogo fadhiyo oo u taagan mar walba xildhibaanimo wax deeqa la waayay oo aan xishoonaynin oo aqligooda zuulay ha ugu darnaadaan kuwa koonfur galbeed runtii madaxweynaha dhamaantood wuu la hadlay bari dhulku martaqaadayna wuxuu isticmaalay ma sha Allah waa loo baahan yahay madaxweynaha waana laga rabaa inuu isticmaalo siyaasadda noocaas oo kala ah markii laga gaaray dantii laga lahaana waxay ahayd inaysan qolo kasto ama koonfur galbeed ha noqoto ama galmudug ha noqoto cid walbo wixii markii laga rabay dan baa laga lahaa in loo madaxweyneeyo oo la yiraahdo idinkaan isbarannay idinkaa soo laabanaysaan laakiin danta laga lahaa markaas ayada annaka waan ogeyn dantii laga lahaana waa laga oofsaday maxaa yeelay ayaga hal maalin haddii la khiyaameeyo ima saasano ay bulshadii ay wakiilkay ka ahayn soo khiyaameyn jireen yaa la sheergaray barnaamijka dhammaan 250 ruux sheergaray barnaamijku marka ima saasano ay na soo khiyaameynayeen madaxweynaha ama Cabdicasiis dambi kuma ahan inuu sidaas u galo oo uu yiraahdo idinkaan isbaranay dad aan isbarnay baa tihiin marka hore ansixiya qodobadii lagu soo heshiiyay si aqlabiyad leh ayagoo aaminsan inay soo laabanayaan ay dhamaantoodii waxay qalanka ku duugeen heshiiskii oo runtii madaxweynaha Soomaaliya iyo maamul goboleedyada gaaray doorashadii ma arkino waqtigaas ayada sababtoo ah haddii markaas ayada ah hatta khayr maysan keeni lahayn ay wax khayr maysan keeni lahayn maadaama wixii la isku mari waayay arrintii dalkii la rabo in laga ilaaliyo wax la yiraahdo tafarruq iyo isku qoobid iyo dhibaatooyin ayaa waxa sababtay in hadduu Ilaahay ku roon yahay nimanka loo madaxweyneeyo dantii laga lahaa in laga gaaro dantu waxay ahayd qof walba markaas asaga heshiiskaas 15 qodob ama hadduu galmudug yahay hadduu Puntland yahay iyo hadduu Hirshabeelle yahay qof walba inuu la shiro xildhibaanada deegaanadiisii laga soo doortay in kaarta kasto asaga isticmaalo in uu codkoodii keeno lana ansixiyo wixii lagu heshiiyay حق لو أركي قول الحق ولو كان مرًا معناه حسكا هذا وحي وح آدي هذا قرار أو آدي هذا حن أو آدي هذا فالحن دورش بقول يكو روح ووح فالحن واي لكن وحال فيري وح اللي يرادو لبفد له الخف الضرين وح اللي هذا شو خف الضرين عدد مغشت وعواي الخف الضرين لبرد بمركز قبصدان لبضد متكي فضود بلغاتا doorasho 100 ruux waa dib aad iyo aad u weyn ummadda Soomaaliyeed dib ku awal laakiin waxa ka sii daran in lagu kala tago meesha si fiican dhageysto madaxweynaha
markuu fiiriyey ismiisaamay oo arkay dalka iyo dadka wax u daneynaya inaysan jirin u ogaaday oo nin walbo runtii fiiriyey yani damcay inuu bulshadan u afduubnaato ayaa madaxweynaha maadaama dalkii dadkii ama madaxdii intay kala tagi lahaayeen danta waxaa ku kaliftay inuu hadduu ilaahay ku ron yahay qaato wixii ayaga isku raaceen maamul goboleedyadii 200 ruux sheergaray barnaamij sheergaray insha Allah taala waxaa dhacday madaxweynaha markii arintii heshiiskii 15 qodob 101 ruux iyo wixii markaas ayada ah oo meeshaas ku qorna markii la isku afgartay nin walba maadaama wixii aad idinka aad ii dirteen aan yeelay idinkan waxaa idinkaga baahan yahay bilaa dood la'aan inaad qolo kasto deegaan doorashadeedii xildhibaanadii asaga markaas mas'uulka ka ahaa waa in wixii aan ku heshiinay marsiisaan baa leeyahay ما شاء الله كويني يعني ودد يعني إلو شدود بدن واي كوار الكونفور قلبت يعني لباتن سنة أيا وحي جوجين ماشان أي فديين يعني وحي كنولي هنكليا إندها إيو أفكا إيو علوشة إيو اللغة إندها أي وحي كدكتن مشارات كودي وحي نغدن إني مشار أي قاتان سيدي أيو توكله دين تي قاتان دكامات أي تجان ناجها أي مارك نمحوا أكو جورسان ويرادان بيش صوصة مشار قادنا يا مشاركي مارك نمحوها كامم كيمالي هجات كلو قداي إن هجات وقاتان بيش مارك دمات مشاركة سيدي أيو أي لي محمد مرسل مصدر جواري مشاركي مصدر بريا الله صدره يبردم الله صدره لكن بني آدم كالأمم قن هو حي أمقيهن على الشادي أغلى قادي إيوه وحيابك كله هذا أنا شيء كليبي ونوري ساس دراد المركز شركة برنامجكو حنادي يا تقوم هاد علنا مدعيناكم فرق البيت وداني عبد العزيز حسن محمد لفتقرن كنت عندها كساري شلي مركي مجلس سويمت وعوش شيء إذن كوجوجو أو حيل كسدان وهيو أي حل بانذي أسبوع الذين كنتوا داخلين دونا بالي الله محق إلهي سبحانه وتعالى رن يحقق الله نوجدكم وأرين هذه ونكسمه معناه هذا وين يفهمان بالله يعني أغلىهم وين فهمي لكن أيهم ما فاهمين ضد بدل ما يسمى فاهمين معناه هذا وحويه هي يعني إذنك واتصور شقيسين سنة كان ترتن مجالي كرتانة ما ترتمي كرتانة معناه ما يشكو جرو وإلهي ما هدي السؤال صوته ما ترتمي كران وكريم من على سؤال وده الدم بدلك كجلي دين الدم بكجلي دغنكم وضع صنع الدم بكجلي بلشيدي متلي جيرين دم بكجلي يا دعيناها عبد العزيز وحن كلها هنبلي يوم ضاني ماذا حوينا هذا الكاغو هراء أنا جوان درين سنة إنه سياسة ده مركب ده شيء أنا كأسبرني أنا كأسدان صوبته سمعت دادي بقى بقول كده عيسى هدي وحنوع عن أكل أمر الله بقى سوء عليسو هذا ديجان كوا ككوا خلاص خوفر قلبت كلمة سديد يطبعك جوالوا سديد يطبعك جوال الصومالية هدي وح حد الجوال سوء عليه والله بالله تلا بابا وإن لقد دكتورنا ذا وإن أرنتها سيدة مرول بالبلشدة الصومالية كان نقطة awareness وإن السكيل على اللسان أو أد مرول به أد ما أركنا وحي أد صومرتنا كقوم ميسان باللبعين ما يغسن يدين هرجوجين ما يغسن يدين متلاين يا ما أنت تبال ورتويدي مركو يراه الضمع سياسات بيقول جري حلي باني من ربا أوكي ما حد أبالة أو أد بلشدي أدية كدورتي أنت عندك كجبني ما حد أبالة أو وناقة وسميسي إلا ويديو وقف يا وحقيقيا كنت لدي شيء عني حي لي إلهي سبحانه وتعالى قل الحق ولو كان مرا حق دعاره كقرار هذا وحلو باهي هي إن لقرهم الشيء قل الحق ولو كان مرا يا مدة زمالية واقع عرتو إلى هذا اللي جوجو أيا واحد قصة ما ينسي يعني محوات هرفر دي مشاعر بد قادنا يسي بيل والعقب بد قادنا يسي دي بسوي حسابي راحوين وحيكون مهما هذا الله هران آمر هدمي آماو لين هراي وعني نوحي صهر مرصدي نوحي صهر وقاتي أدفان سوقاتي قذالكم عناي والله بالله تالله
حارنا كتاي لا هران آمرين يا عم هراي بعض أنت ويحيني بعض غبطان ويحي إلهي دين عالفي أو بالشدة أتكوني لهذين بعض أنتن إن قلب واحد بدن بالله الصعدة إن تي آخر ويدين دم بيسا مد إلهي أكتسي ويدين دم بيسا إن هنكلم إن شاء الله تعالى يعني محوها تي آخر ويدين دم بيسا تن الدنيا ده قلب إن شاء الله تعالى عقوبة هذه يوحي يعني وناج هذه وذهلي دونتان أول مرنت هذه حي لي وح يعني بني آدمكو سيدي سبوا حلو بهاي هاي قفك بني آدمك مركي مسؤولية لو ديبو وحال الربا مسؤولية سي لوغو تلقلي هدي وكسعدو إنو عدالة درة كسعدو ورنين سحاي باجري أما نين waxaa jiray boqor ah oo islaam oo muslim muxsin ah ee dawladii waqtigii Andalus boqorkaas nin wuxuu ahaa intuusan boqor noqonin nin haraga badan labis badan qurux badan aad u iftiin badan aad u qurux badan buu ahaa laakiin nasiib wanaag maxaa dhacay waa markii xilkii boqortooyada loo dhiibay Andalus markii loo dhiibay wadankan Spain liiraado markii loo dhiibay walaayu samaystay meel walba wakiil u geystay waxa dhacday wakiiladiisii hatta heer wuxuu gaaray inuu dhar iibsan waayo boqorkan isaga dhar laan dhar duluf ah dhibaatada ka muuqato wadiyaabaysa wuu aatoobay wuu baaba'ay dadkii ma garanayaan heer wuxuu gaaray nin kamid ah nimankii asaga boqor ku ahaayo magaalooyinka walaayadii maana wakiil kuga ahaa markuu u yimid ayaa waxa dhacday markii danihii laga dhameystay danihii iyo xisaabaadkii iyo waxqabadkiisii markuu ka warbixiyay iyo magaaladii uu wakiilka ka ahaa ayaa waxa dhacday dan gaar ahaaneed inuu weydiiyo boqor wax baan rabaa inaan ku weydiiyo bir madaxdeediyow boqorkaygiyow waxaan rabaa inaan ku weydiiyaan rabaa ma wax gaar noo ah miyaa buu yiri haa waxay ku xisaabtamayaan u shidneed feenus ba u shidneed habeen bay ahayd waxaan aadi noo gaar ah miyaa buu yiri haa isug buu yiri feenustii buu damiyay markaas wuxuu weydiiyay maxaad la baaba'day buu yiri oo saan u noqotay oo intaan wuxuu yiri mas'uuliyaddu waay buu yiri waxa ay baabiyay xilkan qaaday buu ay maalinka qiyaam ilaahay hortiisii waxaan la istaagi doono feenustan sababtu u damiyay waxay ahayd يعني وحنتدي ددوينه واي وفينوس واي لير كذي بوسكت دمي معناه غاسكي أما شدالكي باركي محوا اللي يفدي وحي ودن وحاسكله حنتي قرن ما حنتي ددوينه بيري معناه وح أنا برايف دي أدادي ويدينيسي وح مهم أبيري إن أنا فينوس وين دميا بيري بالهيركاس أي مسلم كجالس السلام أمانة وأساس وينتا الله القرآن كم بيقول إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفق منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا أجاعب إنه كان ظلوما جهولا إربا الله صوب بندقي أمانه طلبا الله بندقي ما أركنا السمدي الدنيا تلقي بالله بندقي إن عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال بوريه بالله بندقي فأبين ويدي أن يحملنها إني قعدوا أمانة سيدة وأشفق منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا إنسان كبا قادما حقوقي آذيني والغطمت الله إما ساحل اللبان تولو أما هو يوين كودي قرابو دودي عرور تودي هو أديرك وحايين كنو الميل بدنو بيلانا أي كنو ليهين إما ساحل اللبان ودارتي deegaan doorasho deegaan u dhaartay kitaab ilaahay u maray dhakhtar la'aan hooy badan ay u dhimatay umlay u raacday ma garad imisa xildhibaan sheegto oo runtii mas'uuliyaddan intay u dhaarteen dadkoodii oon laayay imisa xildhibaan dadkoodii shumbiyood laayay imisa xildhibaan dadkood intay qaxaan duurka waraabaha ku cunay imisa xildhibaan deegaan doorasho oo xil lagu aaminay عرور فرب بدن ما أنت تجاهل نمو إصبارو شباب نمو يكونوا ليه إما سهل لبان من آدم كدوش شقوايو نولول وايو خرمر وايو وحقوق أسبية هاي إنه الشباب نقول وحقوق أسبية هاي إنه إصبارة دكتور وحقوق أسبية هاي إنه مدة دباتيو هدو بالجاهل جهاي وحبر الشأن هاي السنة ومدو وكيل كذي مرضو ساس نقضه طل يضد بوي بابايا صومالي وحاب بابيي دول كلا جلي
baabi'iyey waxa waaye jiil walbo jiil walba maanta jooga waxaad arkaysaa jiil kasto maanta jooga waxaad arkaysaa qof ku xisaabtamaya haba yaraatee malahan war dadka naga dambeeyo maxaan ugu tagnaa dadka anaka naga dambeeyo maxaan u dhaafnaa hadafka qofka bani aadamka waxaa loo baahan yahay inuusan waqtigaas noloshiisii uusan ku xisaabtamin 20 sanaad xildhibaan ahayd dalkaagii maanta wax uma adan tagin geed ma adan tallaalin qof bani aadam oo xanuunsan daawo ma adan siinin hal meelo ceelaad ku qoday ma lahan masaajid ma adan dhisan waddo ma adan bixinin ummadii shabaabka ma adan dulqaadin dadkaagii isbitaal uma adan dhisin MCH isbitaal uma adan dhisin ceelal biyo macaan ma adan dhisin arday dibadda ma adan geynin arday wax ma adan barin hooyo xanuunsan daawo ma adan siinin ummaddu maxaad u qabatay maxaad u samaysay marka waxa ilaahay mahadiisi ah in maantayto runtii aniga waa waxaan ku faano way koonfur galbeed inaan ku faanana xaqan u leeyahay maxaa yeelay maadaama aan arkay madaxweynihii koonfur galbeed Cabdicasiis uu gartay xanuunka bulshadiisa hayo bulshadiisa xanuunka ay xanuunsan tahay bulshadiisa sida loo dulmiyay sida bulshadiisa loogu been abuurtay uu arkay xawaaye xildhibaanada koonfur galbeed waxay marayaan kuwii hadeertaan kuwii xildhibaanada federaalka koonfur galbeed wadadii kuwii hadda la doortay mareen bay mari doonaan insha Allah taala adduunyada ku dhisan weligeedii Allah lama arkin war Mareykan ama adduunyadu Soomaaliya sideediba dhanka madaxweynenimadu dictator kuma noqonine dhanka xildhibaanimada dictatorku hadduu hal qof yahay aafidiis way yaraan lahayd laakiin xildhibaanada 275 waa dictators 20 sano see ku dhacday maxamed siyaad bara dictatornimo lagu sheegi jiray asigoo dalkii dhisay wadooyinkii iskuulaadkii ciidamadii xoog dalka Soomaaliyeed bad iyo beriga xuduudihii wax walba asigoo dhisay ayaa waxaa loola dagaalay oo qori loogu qaatay oo macna muxuu ahaa dawladii dhisneed oo qiimaha badneed maxaan anaka dalku u saarnay isweydiinay dictator waay wuu nagu badbatay soo lama dhihin allaan kugu dhaarshay bal 20 sano ninka ay ku hortaagan ka war oo xildhibaan ku ah 20 years oo aadan wax awaaqib ah oo wanaag ah aadan ka haynin suuq ugu haysta dadku way sixireen waa saaxiriin xaqiiqiyan waay bulshadii damiirteeda way luntay way baabaaday haddayba ka hor imaadaan dadkii way naxayaan nush way isku dhaxdhacayaan way ka naxayaan macnaha wuxuu arkaa qofka asagoon oo sanadkan dhaarsan uu leeyahay cadowgaas damba hadduu mar dambe soo noqonayo keli waxaan rabaa inaan idin faro horta insha Allah ku dara Soomaaliya insha Allah ku daro nuguma soo noqon doono insha Allah dhacma codkayga ma siin doono insha Allah ku dara sababtoo ah wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika gadan illa an yasha Allah madaxweyne Cabdicasiis qof walbo ku agdhow waxaad iga gaarsiisa salaan kal iyo laab iga gaarsi anigoo ah gudoomiyaha guud ee gurmud qaran waxaad iga gaarsiisaan salaan kal iyo laab iga gaarsi waan ugu mahadcelinayaa inuu ilaahay garansiiyay yaqiintu inuu ilaahay garansiiyay in deegaanadiis waxaa dhulka dhigay ay yihiin mitalaad xumo xildhibaan xumo danaysta iyo jaahil intaas waa isku darsanay annaka waxaan isku darsanay haddaanay koonfur galbeed maantayto xildhibaan magaciisi si rasmi ah u qori karo nuguma jiro wallaahi ani runtaan idin sheegi ama igu jeclaada arbuu qalan kaliya loo dhibo magacaaga qor hal yiraahdo oo farta kala saar magacaaga ilaa iyo awoowaha qor intaas bis la dhaw xaqiiqiyan ma qori karaan waa juhalo ma gartay waa juhal wax ma qori karaan markaas qabiil baa lagu keenay reer hebel baa lagu keenay midka hadda badni la leeyahay Xuseen Maxamuud Sheekh Xuseen inta la yiraahdo waa wasaaradda
عريامي وسارد حنانة حولها درتي الداقة يا درتي الداقة لقولي درتي ورما صومالي جيد بانول يا حلمي النول صوماليا وش مسؤولية بالوجود دي درتي داقة لي معنا بل درت داقة وكلا سارسة درتي الداقة درت جيدا عن حولها داقين باجر مسؤول بكيا هو حولها داقة جر مسؤول بكيا بقدر واجد ولدي كعانك بركة السنة جيدا هو اللي إلى جري ولا داوين جري وضمد هذا أنجبنه وهذا يوروبيان يونيون كا أم وضمد عالم كا جيدا هو لقى تحذيره ولا بين واحد قداش شيء دوم وقت جيدوه مقالة هذا أنا أنجو حقيقي والله وبالله تلا اللي مبمبل ماذا يلي مدرينته تفاح قريه كوديالا بلا لا نقول هذا شيء جيدا هنودن وحواي وجيدا منافع عضوة جيدا هنودن ومنافع عضوة ليه أنت بمالين أكبر إذا تصدقنا ديجان كدني أنجو ما قلت وطن كدني أنجو ومالين أكبر إذا تصدقنا ليه أنت والله جيدا قشنك والله قصة مقالة والله دقة هبينك وحواي لا ميدي ساس وكا نبض كسكو دول كيسان ونظيف لوقت دقيق فيري ولا دقة ولا نظيف فيها يعني وحواي أمان نبض قليو يعني ما كفكريسد أنا لو قلت باتيا أما حب الله قلفته كما فكريسد يا ما قلت نبض باتالله حكم حلو بعين ورح اللي بانكو ورديجانك نينك ما أنتيتو محوك حل كرا أو بلشلة صهر استاي كرا أوف ديجانك يسأل الشباب وقولنصن ما قلت انتو بحو ضدنمو اسكر راديو انا هذا كوان هذا وحبا كما شيغاي كوا قلمدوق iyo kuwan yani maxaa Puntland joogo iyo kuwan khaatumo iyo kuwan Somaliland waxba kama sheegayo war kuwa qurmay waa from Hiiraan waay matabaan garoora ka soo bilow matabaan ilaa Kismaayo eesh lagu baabay waa meeshayda waa matabaan ilaa Kismaayo deegaanadooda waa kala xirxiray dadkoodii biyaa laayo magarat shubun biyood baabiiyay fatahaadihi maalin wala biya ku fataxmo dad nool baa biyo la tagay oo aan la haynin xilibaan meeshii matalo magarat xilibaan ayaa meeshii matalo xishood ma lahan sanad walba uu soo taagan yahay in la bedelo mar rabo magarat waarantii yawma naqulu li jahannam aayadii quraan kariimka ilaahay markuu leeyahay qiyaamaha jahannama la dadkii ahlu naarka markii lagu guro ayaa ilaahay uu weydiin doona wuxuu leeyahay yawma naqulu li jahannama hal imtalaat mabuuxsantay jahannamo mabuuxsantay wa taqulu waxay leedahay hal min mazid wax ziyaada ma haysa خلاص wax deeqay mala hal imtalaat banu hal imtalaat ma garat waxaan rabaa bulshada Soomaaliyeed nin walow aawayto go'aan ku seexo qof kasto clipkan soo gaarsi ummadda Soomaaliyeed oo dulman waa dulmantihiin waan dulmanahay waa dulmanaan doontaan haddii damiirtiin shaqeyn weydo oo afka aad furan weydaan ya maanta ummadooda aniga inaan xilibaan noqdo wallahi oo billahi oo tallahi ummadooda kaliya inaan aniga aan wax noqdo waxaan maanta aan u doodaya xuquuqda ummadda Soomaaliyeed oo baabaaday magarat xuquuqda ummadda Soomaaliyeed oo baabaaday waxaad arkaysaa ciidamo mar walba ciidana la soo tababaray ciidamadii markaas way iska baxaan markii la soo tababaro waqtigooda ay soo qaataan qarash lagu bixiyo la keeno yani xilibaan baa la rabaa inuu flow up ku sameeyo ciidamadii caafimaadkood in la socdo loo baahan yahay in la dhaqaaleeyo baahidooda in dawladda loo soo gudbiyo la rabaa lagala hadlo dawladda Soomaaliyeed xilibaankii waa nafli waay waa bini aadam waay reer buu leeyahay war haddii ciidamadii Soomaaliyeed sida adiga aad u nooshahay inay u noolaadaan haddaad u diido u dhamaatay xilibaan baa tahay deegaan walba degmo kasto xilibaan baa laga soo doo adiga xilibaan maxaa lagaaga dhigay madaxweyne farmaajo shaqo kuma laan for example inuu maantayto ama ra'iisul wasaarihii hore khayre ama ra'iisul wasaaraha hadda joogaba inuu maantayto dugaaroos la xaaladeed ama diinsoor xaaladeedii ama meesha la yiraahdo Bardaale ama Buuhood la xaaladeedii ama meesha la yiraahdo Godan Labe yani madaxweynaha shaqo kuma laan sababtu xilibaan loo sameeyo Godan Labe haday noqoto waxa loo sameeyay ninka la yiraahdo Odawaaba loo sameeyay Soomaa isaga u dhaartay isaga xilibaan u ah ama qoorqoor ba meesha u joogo Godan Labe for example waa dhulka Soomaaliyeed deegaanada sida loo kala degan yahay ma Saleebaan ba meesha degan oo kala ka wada iska fahmi kartaan ma gartaa haddii maanta dib meesha bandirilad uu ka taagan yahay senatarkeedii baa jooga Cabdi Qiibi wax laga weydiinaya
shaqo kuma laha madaxweynaha inuu ogaado shaqo kuma laha sidoo kale haddii maantayto meesha la yidhaahdo jawiil haddii maanta wax ka dhacaan jawiil meesha la yidhaahdo haddii wax ka dhacaan yaa wax laga weydiinayaa wax laga weydiinayaa xildhibaanada beesha yani muxuu ahaa maxay ahaayeen qoladan maxay ahayd ujeejeen wax laga weydiin haddii maantayto miir tuugi iyo meesha la yidhaahdo mahadaay iyo haddii wax ka dhacaan yaa wax laga weydiinayaa xildhibaanada beesha abgaala wax laga weydiin ceel bur wixii ka dhaca xildhibaanada murusada wax laga weydiin shaqo kuma laha madaxweyne man lagu eedeyn karo maxaa wadadaas u furi weyday iyo xildhibaanka inuu asaga proposalkii iyo ma arkino qorshihii inuu asaga la imaada la rabaa marka hore waa inaad qorsho la timaadaa marka qorshaha la timaadid waa inaad qoraal ku samaysaa waa inaad soo gudbisaa ka warbixisaa magaalada baahideeda magarat degmada Diinsoor xaaladda ka taagan oo ayadoo qoraal ah inaad la timaadid waa adduunyada sida waxa lagu shaqeeyaa wan iyo weer iyo wan iyo weer ya magarat wan iyo weer iyo what magarat waqtigii wixii ay dhaceen meel baa wax ka dhacay wan weer what magarat wixii dhan ma haysin meeshii wax ka dhacay wax dhacay maxay yihiin taariikhday dhaceen wax walba waa la noodgareeyaa ya wax kasto waxa muhiim ah in la noodgareeyo oo mar walba la ogaado wax walba wax noodgareysan oo qoraal war magaalo warqad buu ku qoran yahay war magaalo warqad buu ku qoran yahay waxaan rabaa ummadda inaan u sheego war Soomaaliyeed fadhiga laga kaco nin walow maamul goboleedkaagii madaxweynahaagii sida yani la shaqeeyo oo waxaad leedahay qofka markaas maamulkaas kugu joogo ummadaadii badbaadadeeda markaad rabto geel eel ku dhacay baa la yiri dhoobo ku dhacay luglug baa loo bixiyaa magarta awaaq dhibaatadan alxamdulillah wallahi billahi taala waxaan aad iyo aad ugu farxay madaxweyne Cabdilcasiis darad markuu martaqaaday maana sib ula hadlay madaxweynahayga wallahi waa nin siyaasi xaqiiqadii madaxweyne Cabdilcasiis ma nin khatar ah ma sha Allah maadaama hadda waa ninkii ku duray waa irbada Soomaalinimada irbadii ugu horeyso Soomaalinimo oo lagu duro ninkii la yiraahdo kii qorti weena muxuu magaciisa Saciid Abdullaahi Daniel waa ninkii ku duray waa irbadaas madaxweynaha ma arkin muxuu qorqor baa duray laakiin waxa isla qabtay qorqor iyo lafta gareen baa isla qabtay markaas irbadii lagu duray macnaha ya irbadii ayaa lagu duray marka waxa loo baahan yahay madaxweynaha koonfur galbeed ma sha Allah ilaahay buu hala gareeyay say ila tahay ilaa xad hadday dhab ka tahay waa Allahu a'lam wixii uu gadaal kala imaan doona Cabdilcasiis laakiin ma filaayo in nin buu sheegay madaxweynaha koonfur galbeed uu yiri xildhibaan mursal boorow ninka la yiraahdo oo shabaab yani qarax yani muxuu ahaa qarax ku dhacay oo gacmaha iyo waxba gacan baa go'day baa la yiri waa curyaami handicap buu noqday wuu ballan qaaday waa soo celinaa buu yiri laakiin mudane madaxweyne arrintaas naftirkeedii bulshada deegaankaas ka soo jeedo in lagala tashto ayaa haboon inaad adiga go'aanka kaliya aad qaadato runtii xogo yar naftirkeedii haddii aad bulshada hore ula hadashay aniga ma garan karo in siyaasi baa tahay ilmaagaas wad ballan qaaday aniga maanta waan ku dhihi lahaa ii ballan qaad anigana laakiin aniga waxaan aaminsanahay nasiibkaygii dadaalkaygii iyo juhdigaygii iyo ummadda Soomaaliyeed oo jecel meel walba caalamka ay ka joogto oo kalsooni buuxdo ku qabo runtii marxalad baran baa la soo maray marxaladda ugu horeysa waxay ahayd aniga aan sugaayay qofii cod bay ahayd qofii cod waa liiga baqayo yani waxa way sida farmaajo looga cabsaday oo qofii cod looga cabsaday oo kala liiga baqi jiray oo yani deegaan doorashadeedii waa la cabsaday oo Ismaaciil adu banaanka soo istaago da wixii uu qaadanaa baa la yiri maana tiiba la isla gartay haddana waxa la yiri 303 qof tiina deegaan doorashadeenu waan ogolaalay haddana gacantii ugaaskaygii lafta gareen aniga ugaas kala malihi aniga ugaaskaygii nabadoonkaygi qofka kaliya ugaasnimo ku meel gaar ilaa beesha aniga aan ka dhashay dabarre ay ka yeelato ugaas loo wada dhan yahay lafta gareen baan ugaaskayga asagana uu og yahay ma garat aanihina asaga diiday inaan ku shubo aanan u soo diyaariyay 50 litir oo aanan soo diyaariyay inaan duubkii saaro madaxtooyada dhexdeeda aan ugu daadiyaan rabiicana ma garat uu og yahay asagana Cabdilcasiis hadda hadduu maqlaan kolba soo qoslaan u jeedaay asagay u taalaay mudane Cabdilcasiis marka ugaaska beesha dabarre laftaniga aan ka dhashay
سمدون كاد إبراهيم حاجنينا واي أوغاسك جودنا وحاو بيش أنا عن كذا شيء وحواي لفت جرين بأوغاس أوغاسك لو أنا قال لي هبيرات مجد إرجدي إذا شغل ولا هين إرجدي إذا شغل وإرجدي إذا بيش سيدا إرجدي إذا شغل كمالها بري الدوي بالي هذا الكول هذا ما جرته بولا هذا ما الكول بري ما جرته الكول الدوي بالي هذا لفت جرين بهوستجان لفت جرين أي هوستجان أتكلم شغل كلها هبيرات مجد ولا سيديان وحبوا أقون سنين أي بختي كمان نغان صوبته نين شباب وأنا إدلي سجال حبض الشباب أنا يقول فتن دوكيمنتي كسبنا وأنا استوى ديارسين وحان تدك تصين بان هيا أو سيدي كسابسن مالين كساسيجا بروجكتر كي وحي وان وطا ما قلت هدو إلهي دربي عطن إن شاء الله إن مر لبد نوري لمريه والدربي وين وهدو إلهي تياتر دقمة الدينسور سفي عن بالين لو عد قدومية دقمة الدينسور عبد السلام حاج سيدو إن شاء الله وحان كعد سنة يا دربي جاس نور سعد إنه مريه هدو إلهي إدمه إن شاء الله بروجكتر كيبان كيني تاريخ السيدي بان ربا أصغو حتى أقول بفرديو إنان توصيو هالشي سيدي أصغى الشباب لقلي ومدان كوبا بيي كوب كيدي كوغا عنقليي بروجكتر كاس ربنا كوصوب بان لقدو إلهي فيلمان تيودن بالي أول وحي فيلمان هادن بان هيا وشباب كي ميل والبيجيلي وكسو صاري إلا أصغو أسكس صعودي إن وحلقات دوكومنت جريي أما وحلقات دوبي تاريخ وقالي دونا ما أوجينا السنة حقيقي وإلهي فضل جيس الحمد لله رب العالمين وحن صوت صاري صوت داونلود جريي شركة دوينونا يعسق وقيب جلي هو مناس وقيمت كي السق إذا وقيب جلي حدا وربحين نحذين له أو إسوق جارتي بجرت وح إسوق جارتي الصومالي مخاطر كأهتان والله بالله دام بين تيسن كلن أخيار وحي صوت شيئين إن حسين بدني أو هدر تنوزير حنانات حولها إيوه ninkii la yiraahdo xasan macallin si toos ah siiday lacagta ay ugu dhiibaan oo shabaab u diro siiday ilaa ma hadartan laga joogo inuu san hadafkii shabaabnimo uu ku tanaasulin uu yahay nin jaajuus ayagu ah oo labada dhinac ku nool warbixinta dawladda ayuu gudbiyaa waa xaqiiq waa shabaabkii buu lacag u dira badni buu ka soo qaadaa wuxuu ka soo qaadaa ninkii la yiraahdo muxuu ahaa ii sheeg adiga ninkii la yiraahdo حسين بدني لقى سوق هذا وحلقة سوق هذا بالك يراهد حسن معلم شباب أصيغ وكيل وياق برا وإكنانه يلعب تودره وسوق أنا أيضا وسوق أنا العجي وصادره كل هالكاس وجود بيها صوبته يعني وحواي فيديو واحد يراهد حق هذا حقيقي فيديو ديبا وربحين وجود بيها وجاجوس بالشيء الصومات كل إحنا والله لكن وح خسارة قبه أودياش دغنك أو آمين سن وسارد دين أريمها جوده أو آمين سن سيدي ayaa khasaaro ku dhacday hadii ay ku dhacdo marka aniga hadhow dam ima aadi doontaan sidee waqtigiis waa gabagabo wax kasto ayaa ka suurtay shabaab saalax badbaado odagii la dhihi jiray u dhashay beesha isaaq xalan isku qarxin jiray xilibaan hore ahaan jiray oo 80 jirka ahaa iyo sidee maanta waa isku mid waa neef la aari waa hadhow dam odayaasha dhaqanka waxaan leeyahay hadii qarax intii loo soo dhiibo jeebka idin geliyo haddii uu qalan idinku dhajiyo oo baalka la isku qarxiyo haddii hoolka qarax idinkaga diyaariyo hadda ummadda Soomaaliyeed aniga waxaan idin leeyahay waa siiday haaji maxmanuur ugaaska dabarninka sheegto waa al-shabaab horeyaan idinku sheegay warbixintiina waan hayaa dokumentiga laga diyaariyay oo dhan waan hayaa bil walba lacagaha uu diro EVC balaasida asagoo ku diray telefoonadii ku diray amiirada al-shabaab ee yaaq baraawo iyo kanaana joogana waa la ii soo diray nambaradooda waan hayaa hadduu ilaahay markuu waxaan leeyahay odayaasha dhaqanka iyo cid walba loo geeyay haddii siiday maanta jaanas u helo waa hubaal madaxda qaranka isku qarxin lahaa hadduu jaanas u helo way sababta adduunyadii wuu nacay cholesterol baa ku dhacay waxaa ku dhacay sokor baa ku dhacday dhiig kar baa ku dhacay uquubada ummadda Soomaaliyeed iyo uu galay way macna ummadda ku baabi'ay haddeertan waxyaabaha jir marka aan u soo laabto oo beesha dabar gaar u ah in shar gareys 450 qoro dabarre wadi maqlaysan Xuseen Badni qorshaha cusub uu digay waxa waaye wuxuu wacay gabar asaga walaashiis dhashay oo yaani muxuu ahaa oo walaasheeni ah runtii nasiibkeeda ay qabtaa kaamil abdqaadir cadow wadanka Holland joogta ayuu wacay kaamilo Nairobi joogta ujeedada loogu yeerin Badni iyo Sidey baa u yeereen badni wuxuu iska dhaadhiciyay
inuu hadduu ilaahay kuu roon yahay isticmaalo bahasha la yidhaahdo badni inuu bo'aale kursi ka doonto maadaama beeshii Tekeme iyo beeshii Ugul iyo beeshii Wulweed iyo beeshii qiimaha leh Waaqbare oo wax garadkoodii hadday noqon lahayn reer Siid hadday noqon lahayn Biyooley hadday noqon lahayn reer Awkeerow hadday noqon lahayn reer Awberkaan ay go'aan ay ku gaareen inay iska bedelaan iska horleexiyaan go'aankoodu uu noqday wuxuu yiri Kaamil adiga imaaw booskayga raba inaan ku raadiyo oo ku geliyo يا ولا شيء نيدن كلب وقف ونكسم لكن السلام عليكم وعليكم السلام أي رونك الشكتا السلام عليكم وعليكم أنا قد مقتش هذا اللقب بدل ما أقع نين ولو نينك السيدي هوست سكجر إن رونت الشيء جاي وأقول غصبنا هم بالشكتا وحين رونك الشكتا السلام عليكم وعليكم السلام أي رونك الشكتا وحقيقة ويا ورشها مركو حواي باشي فرة يباليه ديجان كسلها Tekeme ayaa waxaa la rabaa in kaarto loo digo boos ka deertaanba baadilka bulsho ku joogo ayaa wuxuu rabaa Xuseen Badni asigoo marayo Umar Abdirashiid Ali Sharmaarka hoosta ugu jiro ayaa wuxuu go'aansaday inuu Kismaayo iyo bo'aale ka soo galo senatarnimo uu ku raadsado maadaama Diinsoor ay kacday oo Yaaq Baraawe ay kacsan tahay oo Muqdisho shacabkii reer Diinsoor ay kacsan iyo Baydhabo iyo Abdaasiisna meel laga mar la waayay Axmed Madoow la aaday magarat ka daarood ahaan hooyaday baa daarood ah hooyaday baa Maxamuud Saleebaan ah daraadeed macnaa si fay dhageystay halkaas abteelow meeshan meelan galaan waayay gurmud qaranba toosh iga daba qaatay waa la ibaabiiyay man nooli iimaankii baa la iga qaaday waxaan rabaa buu yiri halkaas buu allan ka soo gala Xuseen Badniyow والله ووقتك قديم الله هذا نفط هذه هربو على أقون وملي ذاتك فرلي راد أنا رأيي أنا إدلان إن أدب ورشتة فينا لهت تدو هذا لقاط معه أنت توصين مويه هدي سوجستان فرفاي هدي سوجستان ولا يقانا صدق Tekeme وهيسي Tekeme هو حقيقي وهيس لما قام واحد بدن بيصوص مرين wax badan bay dul qaateen 60 sano maalin qura xilmaysan arkin ma garat Xuseen Badniyow aniga waxaan kugu la talinayaa hadii kolba malkul moodkaaga uu yimid Tekeme iyo Farre deegaanadoodii kursi u doonay orod bax waxaad ka heshid bal leedahay walaashii Kaamil waxaan rabaa inaan u sheego walaashii Kaamil waqtigaaga lama joogo waqtigaaga hadda ma ahan adiga waqti baad leedahay ma garat haddii la helo shaqo Diinsoor dhaxdeedii laga qabanayo oo hay'ad meesha ay timaado budget haddii ama shidaal walaashay macaan oo la gado shidaal iyo waxyaabo dukaan yaro alaaba ganacsi oo kale iyo shoobani iyo waxaas oo kale waa macquul waay oo waxaad geli karto laakiin maanta waqtigaaga walaashay qaaliga lama joogo bulshadan in la isku diro maahan adigina kolba hadee badni waa ma arkin muxuu ahaa abtigaa waay خير الله سيو أي هاجي أبايا كل شيء قف وناكسن ويا أباي كوس أباي ما أركنا محوها إن حاج محمد نور أيها كل شيء سيدي بقى أبتجاه مركو حواي ولي جاي الله أنا ديت كل بديجان كان حدينا متشد أربطه وها سويدين مدن أربو يو كرتون يو سريرة يو جون كماد هون شله رامد فولات أخبار كهيسا dadka meesha ku noolaan jiray ku noolaan doono waxma u qabatay iskool ma u samaysay MCH miyaad u furtay xad u qabatay wax isweydiin badan baa jiro channels fara badan baa ku soo maray hada waan ognahay hataa ma arkino gurigii Morgan oo xamar ku yaalay shidaalan ku siiyay baa tiri Kismaayo waagii la weeraray taariikh badan baan hayaa mar raba inaan dib ugu laabto laashii qaaliga waqtigii beenta waa la soo dhaafay waqtigii runta ayaan joognaa halkii run waa la cadeeyaa taada kale qof Shariif Sakiin asxaab la ah koonfur galbeed waxba kama gooyo qof Shariif Sakiin ku xiran oo asxaab la ah aaminsan jecel koonfur galbeed waxba kama gooyo ma garat dhinaana waxa waaye qof argagixisada ninkii ahaa Roobow ayaa taageerad u ahayd Kaamilow marna Shariif Sakiin baa taageerad u tahay ila maanta laga joogo qalbiga qurubtaadii waxa dhax fadhiyo aw Shariif isgoowad ku haysa
ونقنا والله صعنا كامله ولا شيء معان رالي أهاو ما أنت وحجرتك باش التكمة ركي الضمر بله ويديارسينهم هذا وحبرتي بيليهن أقوى يهنا إليهن دخاتير بيليهن بروفيسور إليهن سراكيل عيدن بيليهن حق ودين قاطان بالربان وقت أقل ما جوا وبقى لقى عنكم مجرتوا وأرو أم بالله باي وماشي اللي رادو إن محيهد دولكي وينايو إلى جلب إلا يدول كاسودن يوماركنا دول كاسودن بالربا جلب دقمد الجلب بالربا يقرري يوماشي الذي يجري داي تباكو إلا يوماشي اللي رادو دجوما يبقدي بالربا إن قعنت الوسو عليو ومدي ديجان كاس ديجانو دي والله بوبي والوسو دولي بيرو هودي بالدعي سشر الدراه قاب شرعيسن يو عقلي مسكح بالربا إن الاستعمال وقتها ولا شيء لما جوه ما ماشي مورغان شال لقى سوق هذا ما إن شاء الله تعالى هدي هذا الكيج مال كدع أبو ورقتنا إجرى اللي هاو خيانة يا كدرنا أذيك أدودت وحدي أن كاشيء جايو تكمين الخيانتك يفرق إلى خيانتك وهذيك الدين صور حق هذا بدني كوسو ورجيو أو يعني دنا عشان يعني محوها لو ورجينين كل اللي هذا محوها هاي بدني سنة ترنيمة حلقة وكسوق له أنت سؤال إسكدي دي بدني وكانسر باش الدبر بيرك كجيا الله والله يعني وحواي ووح إن شاء الله تعالى إلهي إذا مكيس وإن لسكجوي ولقطة كجيا اللي عندها بير لقمنا ولا هذا كانسر لقطة والله جريا إن شاء الله تعالى والله جريا إلهي سبحانه وتعالى بنقول دوانينا والله جريا أنا كرسي ما وحنا نضوضه بدبادة باش الدبر يعني نضوض عليه ديجانا داس أو ظلمن أو باباس إن بدبادي وإيجا قانتها وإيجا قانتها تاسيد إن شاء الله تعالى أركباش الدبر وحنا لا يهاي إن ديجانك ولا كلا لا يهاي ديجانا داس هدو إلهي كورون جبوينك دبر خنتنا أسوشنا فين هورين وأنا بسمي باور شيرينج أنا هوريان أسمي باور شيرينج هوريان أسمي سدح جفو هدو إلهي إدمه إن سدح جفو وباش كميدا وحي حد الله هو إن كو يلابو سنتر يقدمي دقمو ما قدمي قبل يبهاش اللي رادو يحلبان مامول قبلات بقالة جبده هوس أي لقى سوق عالم دونا سدح جف ماشس أي إن شاء الله وتلوحوا ذيك عالم دونان هل جفو يا قادي دون الجف ده سيدا وحنقول تلاقلني لبي طبعا كجفو باش الدبره إني كده موجودان دولة دان هريان وقيبني وأنا ديارني أقول يهن يوح جرت يماركنا معلمين يسراكيل أنت بوان كوال هذا النوان الدياري واحد ديار سوا وواحد ديار سنة دولة الفدرال كمان وجود بني كونفور قلبين مدعوينها وانو جود بني لمان والله هي دوكيمنت جاز وديار سينهم مرك إن شاء الله قفلوا وما أنت تسكت دعينا يو إن بلشد أنت أصلك إن حل بال يعني كل جد إسن سياسة اسكت حركين تاسوات ديني سياسة دان كوي طبعا جفو هل جفا قدي دونت جفدا سيدا إن شاء الله تعالى وحي مدنان ويلان دونتا مر الله لمركي حلبانادان iyo wasiirka iyo wasiirada la helo ka bacda duu ilaahay idmo beesha sayida mudnaantii wad bay leedahay ama safiir baa la siin doonaa ama qunsul baa la siin doonaa ama agaasime fiican bay qaadan doontaa ama ma arkina muxuu ah sarkaal ciidan baa la siin doonaa jagadeedu waa u diyaar duu ilaahay idmo insha Allah dadku aqli iyo maskax in isku maamula loo baahan waxaan waxa waaye waa biiro in la isgaarsiiyo ma aan hal beel kaliya waxaan laga dhaxilaa inaan dulownay oo baaba'nay oo ducafan noqonay oo aqligeena zuulay hal beel kaliya ayaa saddex jago muhiima isku haysato magarad oo haddana damac kale ku sii jiro ya marka insha Allah taala waxaan rabaa mudin aan u sheego Soomaali meel walba ay joogto waa in lagu baraaruga waa in loo diyaar garoobaa doorasho insha Allah taala oo dadban wax walba dadban xilibaan dadban doorasho dadban wasiir dadban inta min loo diyaar garoobo loo baahan ergad dadban magarad hoolal dadban security dadban inta waa inaad u diyaar garoodo insha Allah taala marka insha Allah waxaan u maleynayaa ilaahay baa quraankiisa wuxuu ku leeyahay wa asaa an takrahu shay'an wa yaj'al Allah fihi khayran kathiran waxaan karaaxsanaynay doorashada dadban waa kahanaynay dib bay nagu ahayd laakiin wa yaj'al Allah fihi khayran kathiran ayaan rajaynayna ducadu waa xaqiini إن شاء الله تعالى سفر مهم أيام كبحي
dunida daafeed meel kamid aan joogaa insha Allah taala waan iska warhari doonaa aad iyo aad u mahadsantihiin madaxweynaheygii qaaliga saaxiibkeygii mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen baan ugu talagalay barnaamijkan inaan ugu mahadceliyo waa hubaal asaga mashquulkiisa badan aawi dhalinyaradii faraha ka fududaa gacmaha ka fududaa oo runtii warbaahinta fadhiyay oo agaasimayaasha lahaa waad ii jeedaan waad ii aragtaan salaan kale laab haliga gaarsiyo madaxweynaha una sheeg waa xildhibaankaagii oo safar soo ah oo xirxiran oo diyaarsan taransad wadamo badan ku soo maray ugu soo foodle ugu soo socdo doorasho dadban iyo erga dadban iyo wax walba oo aad garatay in hadduu ilaahay ku roon yahay mar kale inaad wanaajisid insha Allah taala aad iyo aad baad u mahadsantihiin xariif gaal baa gadaashay taagan waad u jeedaan ma malaynayaa gaalkan ma aqaanin oo yaani qoorta inuu igu dhuftan waan ka baqayaa ma garan karin kasto meesha meel ay nabad tahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi taala wa barakaatuh